السلام عليكم. والد نوعي تهي ووالد waxaa tahay dictatori ah controlkiisa badan ilmaha kana sakarin naxariista iyo raxmada ku yar tahay mise waxaa tahay waalid jilicsan mayada dhibto oo yes lay maanta ku hayo ilmaha seerabaan ugu wataan aanu limitkiisa iska jilicsan oo no expectation u lahayn ilmihiisa magacayga Sucaad waaye waxaan soo bartay barbaarinta iyo kobcinta carruurta waxaan ka shaqeeyaa as a mental health therapist waxaan jeclaystay inaan la sheer gareeyo nafteyda iyo waalidiinta Soomaalida iyo familiyada Soomaalida inaan soo xasuusiyo muhiimadda ay leedahay intentional parenting. Inshallah videoga waxaa ku ogaanaysaa what is the four style oo afarta style oo badana psychologistiga ee isku raaceen in waalidiinta u kala baxaan si ilmahooda u rabiyaan u tarbiyayaan ama afartaas dariiqad waxaa waaye mid ugu horeyso authoritarian style waa style oo controlling isticmaalo waalidkii stylekaas isticmaalo waxaa waaye waalid control badan dictatori ah my way or the highway ah oo taasna laga wado wuxuu asaga dhahale jiraan waxaa asaga dhihina ma jiraan mayada ma jeclo waalidkaas discussion ma jeclo in la naqaasheeyo wuxuu dhahaa wax laga sheego mise wuxuu rulku soo riday nidaamku soo riday in la dhaho nidaamkaas waxa ka qaldan ma jeclo discussion communication badan ma jeclo wuxuu jecel yahay nacam xaadir yes in lagu hayo oo wuxuu dhahaa yee la dhaho waalidkaas badanaa ilmihiisa expectation wuxuu u qabaa wuxuu ka rajeeyaa ilmihiisa high expectation inay ilmo super children ahaadaan inay ilmo perfect ahaadaan which sometimes oo researcher lagu ogaaday ilmaha sometimes waalidiintaas qabaan inay ka caawadaan mise ay ka suffer garayaan anxiety difficulty connecting with other people anxiety waxaa waa walwal inay dadka kaleeto oo dhib ku qabaan dadka kale ay la macaamuloodaan axyaanan and yeah so taas ma aha laakiin in ilmaha oo waalidiintooda dariiqadaas kusoo koriyaan inay kulligooda saas yihiin laakiin some of the kids waxaa laga yaabaa inay saameyntaas lahaato waalidnimada dariiqadaas waalidnimada okay dariiqada labaad mise styleka labaad waxaa waaye permissive parenting style waxaa la waalid aan expectationkiisa iska yar tahay ilmaha oo jilacsan naxariis iyo jeceyl badan muujiya cuniga inuu dhibo aanan jecleen oo soo usu sameeyo waxaa kaloo sometimes dhahaa permissive wuxuu kaloo soo gali karaa like free range parenting could be also free range parenting where purposefully parenting ay u siiyaan ilmahooda xorriyad more freedom more cuniga dariiq soo rabo inuu u macaamuloodo maraba ilmaha la dhibo oo pressure la saaro expectation zaid la saaro waxay jecel ilmaha inuu asxaabtooda oo kale friend oo kale relationshipkooda ahaato more like a friend not like qof oo cuniga controlayo mise cuniga rabo inuu wax kasoo saaro mise cuniga qasbayo nidaam iyo structure ku qasbayo okay the third parenting style midka saddexaad waxaa waaye uninvolved parent midka ugu xun waaye uninvolved waxaa laga waalidaa waxba ka shaqadiisa ahayn jooga laakiin aanan joogin shakliyan joogo physically laakiin emotionally and unavailable aan ahayn oo waalidkaas waxaa laga yaabaa inuu guri ilmihiisa siiyo cuno siiyo guri shelter and house siiyo laakiin shelter and food laakiin aan cuniga iskuul aaday yaa shaqeeyo yaan shaqeynin yaa asxaabta xul qabo yaa asxaabtiisa wax ka qaldan yihiin yaa wax qalad ku jiro wax ma saxo asi laakiin wuu joogaa wuxuu u provide garayaa ilmahaas financial lacag mise guri mise basic staffka laakiin wax intaas ka badan shaqadiisa ma ahan midaasaa ugu xun styleka kale oo afraad oo badanaa laga xiiseeyo in western culture waxaa waaye Mareykanka iyo meelaha laga xiiseeyo wadamada oo galbeedka waxaa waaye authoritative parenting style waxaa waaye waalid control isticmaalo in nidaam laakiin naxariis
iyo jeceyl iyo cunug inuu dhageysta oo fahma also isticmaala labo isku darsaday kii koowaad wuxuu ahaa dictatori kii koowaad aan soo sheegnay wuxuu ahaa dictatori naxariista ku yartahay laakiin kan waxa waaye ugu dambeeya hadda authoritative kala dhaho waa naxariis jeceyl soo muujinayo haddana wuxuu controlingkiisa isticmaalaa oo purpose nidaam uu leeyahay hadaf uu leeyahay goal uu leeyahay gooshiisuna ku socdaa that is the parent that authoritative laha badanaa parentigaas ilmaha u soo saar waa ilmo loo good high self esteem qabaan kalsooni dheer qabaan ilmo isku ku fiican ilmo waxa waa emotionally regulate themselves oo emotional xanaaqooda iyo farxadooda iyo emotionkooda controlling karo so parentigaas ugu fiican la dhahaa laakiin researching also waxaa la arkay in authoritative parenting especially with Chinese parents ay result fiican ka helaan so culture-kaagii meesha markaas joogto waxay tusaysaa in natiijada mise outcome-ka different noqon karto laakiin waxaa waaye mar walba isku day anagana rasuulkeena baray naxariista inay muhiim tahay mid naxariis ka maqan I don't think inay result fiican keenayso even if result is fiican yahay why would we want to go to that way naxariis jeceyl iyo understanding iyo cunugeeda la communicated oo dareemo wuxuu inaa maqluusid oo emotionally you available u tahay ka warqabtid oo haddana laakiin firm tahay oo ruulkaaga clear yahay oo agenda qabtid oo purposefully and intentionally waalidnimadaada intentional ka tahay waalidnimo oo laga soo fakeray waalidnimo habaysan waalidnimo reason leh waalidnimo hadaf iyo agenda iyo skill in cunuga la baro oo ku banaysan inay ahaataa fiican laakiin iska soco oo iska parent garay without knowing what is the end goal waa iska dhib it's difficult so anyway find yourself waxaa isku daysaa inaa ogaatid reiterate garaysid which of these four afartan midkee adiga aad tahay videoga soo socxaan insha allah kaadi doonaa haddii adiga mid aad tahay oo waalidka kaleetana abaha mise hooyada style kala yahay maxaa ka dhalan karo seena looga hortagi karaa cuquubooyinka ka dhalan karo mise what is it insha allah taasaan ka hadli doonaa next time soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu